kulanti wacan daawadayaal halkan waa barteena YouTube ee halbeega wararka qodobada xilligan aanu idiin hayno waxaa kamid ah dowladda Soomaaliya oo warbaahintii Al-Shabaab hawada ka saartay iyo ururka Al-Shabaab oo arintaasi ka hadlay maxaa ka soo kordhay kiiska saraakiishii amniga Beledweyne iyo gobolka Hiiraan ee dhawaan looga yeeray magaalada Muqdisho sidoo kale waxyaabaha aanu idiin soo gudbin doono waxaa kamid noqonaya saraakiisha nabad sugidda iyo booliska gobolka Banaadir oo soo saaray digniino la xiriira amniga magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta weerar dalka Djibouti ay ka geysteen koox falaaga ah haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad barteen YouTube-ka halbeega wararka subscribe inoo saarto adigoo muuqaalkan like saaray lana wadaagay saaxiibada waa hagaag daawadayaal ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno dowladda Soomaaliya ayaa warbaahintii Al-Shabaab hawada ka saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xirtay dhammaan barihii internetka ee lagu baahin jiray wararka kooxda Al-Shabaab sida lagu cadeeyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa xaqiijiyay in la xiray oo hawada laga saaray barihii internetka ee Al-Shabaab iyadoo la soo bandhigay liiska ilaah mahadiis barihii ugu waaweynaa ee khawaarijta ee warbaahinta waa ay xiran yihiin waana uu socdaa howlgalku ayuu yiri wasiir Al-Cadaala waana dhamaystiraysaa dowladdu inta dhiman ayuu yiri wasiir Al-Cadaala sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu shaaciyay email uu dowladda ku soo ogeysiin karo qofkii arka page lagu baahinayo wararka Al-Shabaab ayuu yiri waxaana si xushmad leh u weydiisanaynaa qofkii arka bar warbaahineed oo ay khawaarijtu ku dhuumanayso inuu la wadaago waxaadna nagula wadaagi kartaa ayuu yiri info@moy.gov.so mahadsanidin ayuuna raaciyay wasiirka shirkadaha bixiya adeega internetka ee Soomaaliya ayaa si toos ah loogu wargeliyay in ay xayiri karaan oo mas'uuliyad ka saaran tahay baraha Al-Shabaab ay ku baahiyeen filmadooda argagaxa leh website-yo muddo dheer baahin jiray wararka Al-Shabaab ayaa hadda hawada laga saaray kuwaas oo ay ku jiraan Somali Memo caalamada iyo Al-Furqaan sida ku cad amarka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta website-yadaas waa ay xiran yihiin ugu dambeynna jimcihii toddobaadkiina dhaafay ayaa hawada laga saaray amarkaas ayaana noqday mid hirgal ayaa la yiri markana xogta saraakiishii amniga gobolka Hiiraan ee dhawaan looga yeeray magaalada Muqdisho kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne taliska booliska Soomaaliya ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan u fasaxay shaqadiisa kadib maalmo uu su'aalo weydiin u joogay magaalada Muqdisho taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Cali Cabdulle oo maalmihii aynu ka soo gudubnay la faafinayay warar sheegaya in Muqdisho looga yeeray kadibna la xiray ayaa waxa uu sheegay in su'aalo laga weydiiyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne sidoo kale Colonel Isaaq taliyaha qaybta gobolka Hiiraan ee booliska ayaa ka gaabsaday inuu wareysi bixiyo waxaana uu cadeeyay in hadda loo fasaxay shaqadiisa oo Beledweyne uu dib ugu laabanayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan iyo taliyaha NISA ee gobolka Hiiraan waxa uu ku eedeeyay inay amniga magaalada Beledweyne dayaceen taasi oo keentay in Al-Shabaab ay qaraxyo waaweyn ka fuliyaan magaalada Beledweyne labada taliye ee NISA iyo booliska gobolka Hiiraan ayaa maalin kadib qaraxyadii Beledweyne ka dhacay waxaa looga yeeray magaalada Muqdisho iyadoo su'aalo laga weydiiyay sababta ay uga hortagi waayeen qaraxyadaasi sida xog ay ku heshay caasimada online hadda waxaa shaqadiisa loo fasaxay taliyaha booliska gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Cali Cabdulle balse xog lagama helin weli waxa laga yeelayo taliyihii NISA waa taliyaha NISA ee gobolka Hiiraan oo isla kiiskan eedeymihiisa wajahaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte ayaa markii ay qaraxyadaasi dhaceen waxa uu dowladda dhexe ka codsaday in la baaro waxa sababay in labada taliye ee qaybta gobolka Hiiraan aysan mas'uuliyad iska saarin ammaanka magaalada isagoo sheegay in hal buundo ay ka soo gudbeen saddexda gaari ee ku qarxay magaaladaasi markana dalka Djibouti koox argagixisah ayaa waxay fuliyeen weerar askar badan ay ku dhinteen dowladda Djibouti ayaa sheegtay in 7 kamid ah askarteeda lagu dilay weerar ay koox falaaga ah gelinkii hore ee jimcihii ku qaadeen xero ciidan iyada oo bilowday inay baadi goobto 6 askari oo weli la laayahay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Djibouti ayaa lagu eedeeyay weerarka lagu qaaday saldhigga Garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaala gobolka Geeska Afrika in ay ka dambeeyeen kooxda hubeysan ee Fruit loo yaqaano oo laga soo gaabiyo Front for the Restoration of Unity and Democracy kuwaas oo wasaaradda gaashaandhigga Djibouti ku tilmaamtay inay yihiin koox argagixis ah inkastoo ay askarteenu si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaasi waxaa ku dhintay 7 kamid ah askarteena 4na waa ay ku dhaawacmeen halka 6 askari la laayahay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Djibouti madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qoraal uu soo saaray
waxa uu ku cambaareeyay weerarka ay fallaagadu ku qaaday saldhigga ciidan, waxaana uu sheegay in ay dowladdiisu sharciga horkeeni doonto kooxda weerarka qaaday. Kooxdan burcadda ah ayaa caan ku ah falalka foosha xun ee argagixisanimo iyo dhaca ay ka geysato deegaanada fogfog ee dalka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga, oo intaa ku daray inay dadaallo badan ku bixinayaan in la helo kooxdan dilka geysatay iyo askarta maqan intaba. Kooxda Fruud oo u badan qowmiyadda Canfarta ee dalka Jabuuti ayaa horaantii sanadkii 1991 waxa ay dagaal la galeen dowladda Jabuuti, hase ahaatee mar dambe ayay kala jabeen, iyada oo xisbiga Fruud uu qayb ka yahay isbahaysiga UNP ee haya talada dalka Jabuuti ee uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, halka garabka hubeysan ee Fruud uu weli ku jiro dagaallo hubeysan. Jabuuti oo ku taalla mid ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu mashquulka badan dunida, oo ay badda cas ku kulmeen gacanka Cadan, ayaa martigelisa saldhigga kaliya ee Mareykanku ku leeyahay Afrika iyo saldhigga ugu weyn ee ciidamada Faransiisku ay ku leeyihiin caalamka oo idil. Markana booliska iyo nabad sugidda magaalada Muqdisho ayaa waxay soo saareen digniino amniga la xiriira. Talisyada booliska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay shir amniga ku yeesheen magaalada Muqdisho sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha amniga liddi ku ah. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta degmada Warta Nabadda, waxaana looga hadlay mideynta amniga, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin guddoomiyeyaasha degmooyinka, taliyayaasha booliska iyo nabad sugidda ee degmooyinka dhaca qaybta bartamaha oo ilaa 5 degmo ay ku mideysan yihiin. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa waxa ay ka warbixisay waxyaabihii looga hadlay kulanka wadajirka ah, waxaana ay sheegtay in shacabka looga digay in guryaha aysan ka kireynin dad aysan aqoon u lahayn, taasi oo khatar ku ah amniga magaalada Muqdisho. Guddoomiye Zeynab waxa ay sheegtay in dowladdu ay la wareegi doonto gurigii lagu helay in la dejiyay dadka ammaanka liddiga ku ah oo ay Al-shabaab ula jeeday. Kulankan ay yeesheen guddoomiyaasha degmooyinka dhaca qaybta bartamaha, taliyayaasha booliska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka socdaan howlgallo iyo dagaallo ka dhan ah Al-shabaab. Dhanka kalena, Al-shabaab waxa ay war ka soo saareen go'aankii dowladda ee lagu xayiray barahooda internetka. Kooxda Al-shabaab ayaa digniin xooggan waxay u dirtay warbaahinta Soomaaliyeed, iyadoo uga digtay in ay la saftaan dowladda Soomaaliya, iyadoo dhanka kalena ugu baaqday inay shaqadooda u gutaan wax ay ugu yeereen ammaano iyo hufnaan. Bayaan ka soo baxay kooxda Al-shabaab ayaa lagu yiri: waxaan halkan uga digaynaa dhammaan warbaahinta ka shaqeysa gudaha Soomaaliya in ay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah shareecada Islaamka. Warbaahin kasta oo si bareer ah ama si dadban ula safata xukuumadda Soomaaliya waxaan u aqoonsanahay inay qayb ka yihiin duulaanka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Al-shabaab. Warkan ayaa waxaa daabacay inta badan websaydyada Soomaalida oo aysan dowladdu mamnuucin, waxaana arrintan aan la ogeyn sida ay ula falgeli karto go'aankii ka soo baxay dowladda, gaar ahaanna wasiir ku-xigeenka warfaafinta, kaasi oo maalintii shalay ahayd sheegay inaan la ogoleyn in la baahiyo wararka la xiriira kooxda Al-shabaab. Al-shabaab waxaa kale oo ay dhammaan saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ugu baaqeen in ay mihnadooda saxaafadeed u gutaan si hufan oo sidqi iyo ammaano ku dheehan tahay. Hadalka kooxda Al-shabaab ayaa waxa uu ku soo aadayaa maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hawada ka saartay 40 janal oo lagu faafin jiray dacaayadaha kooxdan Al-shabaab iyo wararkeeda, iyadoo dhinaca kalena dowladdu ay digniin u jeedisay warbaahin kasta oo faafisa wararka Al-shabaab la xiriira oo ay sheegtay in tallaabo laga qaadayo. Guud ahaan daawadayaal, wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya xilligan waa naga intaa. Haddii aad nagu cusubtahay, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto barteena YouTube-ka ee Halbeegga Wararka, adigoo muuqaalkan like saaray lana wadaagaya saaxiibada. Warkan warkiisa xigeentaan ku kulmayno, nabadgelyo.